arrintaasu iima soo jiidan faan oo keli ah, waxay kaloo ii soo jiiday in la ii dallacsiiyo guryo jebin iyo baabuur jebin. howlgalkii u horeeyey baan gacanta booliska ku dhacay anoo faldambiyeedkii gacanta kula jira. 3 maalmood markaan xirada booliska ku xirnaa baa askari waardiye ahaa magacaygii oo warqad ku qoran inaadiyey oo waliba raaciyey soo bax alaabtaadana soo qaado. waan farxay oo waxaan u qaatay in la isii deynayo. markaan iridda ka soo baxay baa 4 nin oo madaxu u duuban yahay i kala boobeen. mid ka mid wuxuu madaxa ii gashay kiish madow, 2 kalena waxay igu boobeen jeebo. mid aan u malaynayo inuu madax u ahaa gadaal buu taagnaa. waxaan la yaabay sababta ay anna ii indhasaabeen iyana ay isu indhasaabeen. markii dambe waxaan u fahmay in iyagu isku indhasaabayeen si aan looga argudan, anna la ii indhasaabayo si aanan u garan meesha la ii geenayo. sidii la ii sii waday baa la ii gashay qol yar oo mugdi ah. markaan gudaha u galay baa jeebadii la iga furay, kiishkii madaxa iigu jirayna la iga saaray. baar kadib baa 2 nin ii yimaadeen oo intay jeebadii igu xireen kiishkii madoobaana madaxa ii gasheen ilana dhaqaaqeen. waxay ii gasheen guri hool ah oo meel kaste nal cad oo weyne ka suran yahay oo cirbadii dhulka ku dhacdaa la arkayo. markaan milicsaday waxaan ku arkay dhoobo adag, ciid tamuux ah, jeesto qoyan, mitir kala jaad ah iyo waxyaabo kale. iyadoon war kale la ii oran baa la igu amray inaan dhoobadii qoyaneed cagta dul saaro. deedna intii cagtii la nadiifiyey baa ciiddii tamuuxa ahayd la dul saaray. mar labaad baa la nadiifiyey oo jeestadii qoyaneed la dul saaray. 3 meelood waa la sawiray oo galdambiyeed la ii furay lagu riday, aniguna qolkeygii la igu cishay. waxaanu wax aan aqaan ama aan fikir ka haysto ma aha oo haddeed filkaygaaba weli yar. waqtiga raadkayga la cabirayay waa 12kii duhurnimo. saacaddu markay ahayd 12kii saqdii dhexe baa la ii geeyey sargaalkii xafiiska fadhiyey, waxaana na dhex maray warkan. sargaalkii ayaa yidhi, yarow magacaaga oo 3 sheeg. eedaysane ayaa ku jawaabay, magacaygu waa Ciilqabe Nuur Giirin. sargaalkii ayaa mar labaad weydiiyey, intee jirtaa? eedaysane ayaa ku jawaabay 14 sano. sargaalkii ayaa weydiiyey, bombada yaa kuu soo dhiibay? eedaysane ayaa ku jawaabay, bam waa maxay? sargaalkii ayaa mar kale weydiiyey, taariikhdu markay intaasi ahayd ceelgaabta ma tagtay? eedaysane may. waxaan hubsaday in qoortaydu siriqi ku jirto, laakiin doorasha ma haysto, oo haddaanba damco inaan wax sheego wax aan ogahay ma jiraan. waxaan goostay inaan runta iska sheego, waxaana idhi, niyahow haddaan runta kuu sheego may caawinaysaa? sargaalkii intuu farxay oo kurkuursaday buu yidhi, haa, ballan baan kaa qaadayaa inaan ku caawiyo haddaad si fiican oo daacad ah iigu warantid. eedaysane ayaa yidhi, anigu waxaan ahaa tuug haweenka boorsooyinka kala carara. gabar baabuur caasi ah ka soo degatay baan boorso ka goostay oo kala cararay. markaan meel cidlo ah marayo baan furay, waxaanan weligay arag. xaanshiyo iyo lacag baana ka helay. wixii kaloo dhan ma danaynin ee lacagtii baan la cararay. sargaalkii ayaa yidhi, gabadhii ma garanaysaa haddaad aragto? eedaysane ayaa ku jawaabay, waa suuragal inaan garto wejigeeda. sargaalkii ayaa mar kale weydiiyey, baabuurkii ma taqaan mise garanaysaa haddaad aragto? eedaysane ayaa ku jawaabay, may. sargaalkii ayaa weydiiyey, cid carrada joogtay oo aad garanaysaa ma jiraan? eedaysane ayaa ku jawaabay, may. sargaalkii ayaa yidhi, haddaba kaama siisan, adaase warrami doono. intuu ku tiraabay buu istaagay oo raggiisii u yeedhay, kuna amray in shaqo laga qabto. 14 habeen iyo maalmahoodii markii la ii garaacayey baan qirtay in bamka la ii soo dhiibay. raggii ii garaacayey intay farxeen oo u qaateen in warkii cadowgu ay heleen bay sargaalkii igu cesheen. sargaalkii iyo aniga baan isku harnay. waa nin madow, waa ninkii hadda ka hor aan kulannay. naxariis marna ka filan maayo, laakiin
markaan nafba ma rabo oo waxaan ba jecelahay in la idilo ama la ixiro كده وبهدلي